waxaa jira 4 hormoon oo mas'uul ka ah go'aaminta heerka farxadda ee qofka waxayna kala yihiin endorphin, dopamine, serotonin iyo oxytocin. Hormoonadan waxa ay xakameeyaan heerka farxadda qofka bini'aadamka. Haddaba sidee aan ku horeyno hormoonka endorphin? Marka aan tagno jimicsiga ama meelaha jirdhiska lagu sameeyo, jirku wuxuu soo saaraa hormoonkan endorphinka ah si looga adkaado dareenka xanuunka leh ee ka dhasha jimicsiga. Waana sababta aan u dareenno raaxada marka aan jimicsiga sameynayno. Qosolkuna waa hab wanaagsan oo lagu soo daayo endorphinka. Waxaan u baahannahay ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii in aan daawano waxyaabo qosol iyo madadaalo leh, ama in aan sameyno jimicsiga si aan u helno qiyaasta maalinlaha ah ee hormoonka endorphin. Hormoonka labaad waxaa lagu magacaabaa dopamine. Safarka nolosha qof walba oo inaga mid ah waxa uu qabtaa howlo badan, ha yaraadaan ama ha weynaadaane. In aad dareento ka guulgaaridda shaqada aad qabatay waxa ay sababaysaa in la soo daayo hormoonkan. Sidoo kale marka aan helno qadarin shaqo kasta ee aan qabanay in aan ku faanno, jirku waxa uu soo saaraa xaddi badan oo hormoonkan ah, kaas oo sare u qaadaya dareenka farxadda. Tani waxay sharxaysaa sababta ay hooyooyinka guryaha jooga inta badan aanu u faraxsanayn, maxaa yeelay ma helaan qadarin ku habboon xaddiga dadaalka ay sameeyaan maalin kasta. Hormoonka saddexaad waxaa lagu magacaabaa serotonin. Hormoonkan waxaa la soo daayaa marka aan wax u faa'iideyno dadka kale, xitaa in aan la wadaagno warbixino muhiim ah ama qoraal faa'iido leh oo aan ku soo qorno barta internetka, ama video faa'iido u leh bulshada oo aan soo gelino YouTube-ka, ama in aan qof su'aal uga jawaabno. Dhammaan inta aan kor ku soo xusay oo dhan waxay ka qayb qaataan soo deynta hormoonka serotonin, kaas oo sare u qaadaya dareenka farxadda. Hormoonka afaraad waxaa lagu magacaabaa oxytocin. Hormoonkan waxaa la soo daayaa marka aan iscafinayno oo aan issaamaxayno, marka aan u dhowaanayno dadka kale iyo marka aan laabta isgelinayno. Waana sababta aan u xambaarno ilmaha yaryar ee aan si kaftan ah sare ugu qaadno si loogu soo daayo xaddi fiican oo hormoonka oxytocin, kaas oo sare u qaada farxaddooda. Ugu dambeyntii, waxa aad u baahan tahay in aad samayso jimicsi maalin walba si lagugu soo daayo hormoonka endorphin. Waxaad u baahan tahay in aad samayso hawl muhiim ah, hadday doonto ha yaraato, si lagugu soo daayo hormoonka dopamine-ka. Waxaad u baahan tahay in aad wax u faa'iideyso dadka kale si lagugu soo saaro hormoonka serotonin. Waxa aad u baahan tahay in aad u faraxdo oo aad iska cafiso dadka kale si aad u hesho xaddiga kugu filan ee hormoonka oxytocin. Daawade, haddii aad ka heshay warbixintan, la wadaag saaxiibadaada. Sidoo kale ha ilaawin in aad kanalka subscribe gareyso si aad u hesho warbixinadeena. Mahadsanid.